kulan weyn ayaa biri jiro Liverpool iyo Arsenal garoonka Anfield ayuu ka dhici doonaa. waxaa ku eegi doonaa team news ka labada kooxood meelaha lagu kala adkaa karo iyo waliba saadaasheeda ciyaarta. intaana saddexaas qodob muuqaalka u guda gelin marka hore waxaan bartay Facebook soo dhigay shax isku dhafa oo aan ka sameeyay Liverpool iyo Arsenal. haddaba difaaca goolhayaha iyo qadka dhexe wax dooda kama ay soo laabanin. waxaan halkaas ku cadeynayso in dadka aan xushay ee ahaayeen dadku dhan ay wada og yihiin in boosaska dadka kala kula tartamayo ay kaga wanaagsan yihiin sanadkan. weerarka ay doodu ka timid. haddaba weerarkan fiirina Salah iyo Saka. Salah ayaa dadku inta badan waxay leeyihiin number 9 gay. Salah number 9 maaha. Liverpool number 9 uma ciyaaro. garabka bidix uu ka ciyaaraa, garabkiisa bidix ayuuna kula tartamayaa Saka. asaga iyo Saka yaa bandhig fiican, yaa gool badan dhaliya, assist badan sameeyay. haddii taa imaatana Salah ka bandhig fiican, ka gool badan, kana assist badan ninka la yiraahdo Bukayo Saka. Bukayo Saka uu fiican yahay haddii boos kale la geey lahaa lacala uu ka gali lahaa, laakiin lacala ma jirto positionkaas kaliya uu Saka ka ciyaaraa. marka Saka iyo Salah doodooda halkaas ku egtaa, qof walba waxaan filaynaa ku qancay. waxaan imaanaa number 9 Liverpool Arsenal waxa u ciyaaraan Gabriel Jesus iyo waliba Darwin Núñez. labadooda la isba bardhiga, yaa bandhig fiican, yaa gool badan dhaliya, assist badan sameeyay. markay imaatana Darwin Núñez aan qaatay, Darwin Núñez ka assist badan, kana gool badan. waa soo fiiri kartaa hadaa rabtid. waxa aan ku dooranay aniga ciyaartooyda saas waay, macnaha fahma. sidoo kale waxaa imaataa Gabriel Martinelli iyo waliba ninkan Diaz la yiraahdo. labadooda way iska ag dhow yihiin, kulamay u dambeeyay formkooda woo dhumay. cidda rabtaa meeshaas dooran kartaa. way fahantaa umalina meeshaas. marka aniga waxaan qaatay ninkii Martinelli ahaayaan qaatay, Diaz aan ka tagay. adaa marka Joses kale waxaan dhigi kaas waa ugula doodi kartaa. Diaz waxa soo buluud waa dhigi kartaa, Martinelli maxaa u cunay weys. waa laba isla siman waay markii la yiraahdo bandhig ahaan. laakiin aniga maadaama ay siman yihiin qof baan qaadan lahaa soo maahan, saasaan u qaatay Martinelli meesha soo galiyay maadaama labada weerarka kale ee Liverpool qaateen. sidaas u fahma. halkaas ay kaga gudbo ciyaartan xagaa la iskaga kala adkaan karaa. number 1 xidiga ugu muhiimsan Liverpool ugu dhibka badan ee la wajaho waa Mohamed Salah. Mohamed Salah waxaa saaran Sishango ninka la yiraahdo difaacasho ma leh. Manchester City wuxuu kaga soo tagay qaybkeeda oo Guardiola iskaga soo tiray. number 3 giisa ma fadhiyo ninkaas, Bundesliga ku fiican yahay, difaacida qadka dhexe soo galo ku wanaagsan yahay. marka Arteta ma ogi sida uu arintaas u xalin doono. haddii uu tray kala soo dheelisiin doono, Sishangan uu si kale u isticmaali doono ma ogi. laakiin hadduu Sishangan ku adkaysto, halkaas garab Arsenal halis ku wajihi kartaa, Liverpoolna faa'iido u noqon kartaa. sidoo kale Martinelli waa nin orod badan, garabkaasna waxaa la saaran Alexander Arnold ayaantan difaacashiisa way soo fiicnaatay, balse wuxuu aad ayaantan u doorbidayaa inuu qadka dhexe ciyaaro oo hore u socdo. taa marka waxay keenaysaa in xoogaa fursad uu ka helo Martinelli dhulkaas banaan inuu soo aado. haddii ninkan gudaha soo aado sida uu dhaxda u jecel yahay, sida ninkaas kale aan soo sheegay Sishango. sidoo kale in waxa la fiirinayaa Liverpool waxa ka maqan Ricky Robertson ahaa. Tasimiikaas tare u ciyaar doona sida filayo, waxaa laga yaabaa inuu Gomes ciyaar siiyo. haddii Tasimiikaas ciyaaro, garabkaas waxaa saaran Saka waa halis badan yahay asna. waa meesha Arsenal ay guul ka heli karto, Liverpoolna ay daciifnimo ka dareemi karto. sidoo kale qadka dhexe amaano, qadka dhexe gabi ahaanba awoodiisu waxaa haysato Arsenal. Ronaldo isku sheegay mugta Arsenal ku awood badan. Liverpool rag la yiraahdo ninka kaliya dhaxda uga nool waa Szoboszlai yarkay dhahan. Szoboszlai bilaaw Royalku xoogaa oo kacsanaa waa uu damay. waliba kulankii Manchester waxaan xasuustaa 60 daqiiqo lagu bedelay Gomes oo duwaha lagu bedelay si Arnold dhax loo soo galiyo. kulanka West Ham oo hal darbe dhaliyay, marka kulankaas ayaa lagu ogaan doonaa Szoboszlai boorka ma iska qaadi doonaa si kooxdiisa dhaxda ay ugu dagaalanto. Arsenal waa la hubaa dhaxda Rice iyo Odegaard iyo Havertz soo gali doonaan. ma ogi hadduu Arteta inta cabsado oo ku soo dhax musbaari doono inta Havertz fariisiyo inuu ninka odaga ahaa keeni doono ee ka soo qaatin awal Chelsea Jorginho haddii keensadaan waxay u muuqataa xogaa inuu is ilaalinayo, laba saay galayo iyo hal diishe. laba saay halkaas diishe duu ciyaaro cabsi badan oo gadaal ka qabaa, meeshaas iska ilaali doona. Liverpool dhaxdiya Szoboszlai lagu heli doono, waxaa laga yaabaa yarka Shiineska Indo iyo sidoo kale I think Gravenberch uu dhaawacmay kulankii Manchester ku dhaawacmay. sida daraadeed waxaa ciyaari doono booskaas Jones ama Elliot ku tartami doonaan inay Szoboszlai la ciyaaraan. haddaba dhaxdaas Arsenal hadda ku awood badan gameka ka hor, gameka kadib waxay dhici doona ciyaarta markii la tago lama ogaan karo. marka
Arsenal meesha faa'iido ku haysataa marka waxa meelaha lagu kala adkaa karo ugu muhiimsan meelahaas waaye garbahaas aan idin sheegay iyo sidoo kale qadka dhexe weerarka waxaan u maleynayaa labada kooxba difaacyadooda inay fiican yihiin fursadaha ka imaan doona adkaa doonto haddaba isku soo wada duuduub anigu waxaa rajeynayaa natiijadeyda markay imaato saadaasha kama cabsado hore aan kugu sheegay weliba kulamada big gameska saadaasheedu way saxmataa inta badan gamekan waxaan ku saadaaliyay 2-2 Arsenal inay geli doonaan 2-2 2-2 Aston Villa oo caaw ciyaari doontaana fila in horyaalka hoggaankiisa sii qaban doonto haddii caaw guuleystaan balse haddii caaw guuleyso waayaan waxay iska beer dareen doonaan inay horyaal hoggaamiyaan adigu maxay kula tahay qaybta comment igula soo wadaag